jaamacadda Golden ee degmada Gurceel oo jaamacad kaalin weyn ka qaadatay kobaca waxbarashada degmada isla markaana ka tilmaaman deegaanka ay ardayda sanadkan dhameysatay waxbarashada dugsiga sare u furtay tababar lagu xoojinayo ka guulgaarista hadafkooda maadaama uu foodo ku soo hayo imtixaanka qaranka. Muraajacadan ayaana socon doonta muddo ka badan asbuuc waxaana cashiradan bixin doona Engineer Xuseen Xasan Cismaan oo khibrad gooni ah u leh maadooyinkan. هذا personal computerku wuxuu u kala baxay saddex qaybood. qaybta ugu horeysa waxa la yiraahdaa laptops, kan labaad waxa la yiraahdaa tablets, kan saddexaadna waxa la yiraahdaa desktop. laptop waa kan taqaaniin, tabletna waa kan telefoonka camal oo la isticmaalo, desktopna waa midka systemka, mouse-ka, shaashada, keyboardka ay kala gaarka yihiin. hadda marka laptops iyo tablets are sometimes called mararka qaarkood waxa la isku dhahay labadaas mobile computer. Mobile computer maxaa la dhahaa asna is a portable personal computer, waa computer la qaadi karo which a user kaasoo isticmaaluhu can carry it wuxuu ka qaadaa place meel to place meel kaleeto easily si fudud. Computerka hadda haddaan qaado oo aan inta geeyo si fudud asoo culays weyn aan sameynaa. userna maxaa la dhahaa user waxa la dhahaa is anyone waa qof waliba who interacts kaasoo la falgalada computerka oo mobile device isticmaale user saas laga wadaa. Engineer Cabdi Jibbaar gudoomiyaha jaamacadda Golden campus-ka degmada Gurceel ayaana sheegay in jaamacaddu ay ardayda ka garab sii doonto sidii ay maadooyinka natiijo fiican ka keensan lahaayeen. maanta waxaa noo furmay revision-ka u sameynayna ardayda form 4-da degmada Gurceel, ardayda form 4-da imtixaanada galayo maadada tiknoolajiyada si ay guul uga keenaan maadaama ay tahay maadadii ugu horeysay ama sanadkii ugu horeeyay la qaadayo imtixaanka si ay guul uga keenaan oo anagana aan ku rajo weynahay maadaama intaas oo sano ardaygu wax soo baranayay oo aan rabin inuu guul gaaro. saas darteed marka maanta waxaa noo bilowday revision-ka ayaa noo bilowday aan u qabanaynay dhammaan iskuulada kala duwan ee Gurceel ku yaalo, waana alxamdulillaah waxaa noo qabsoomay in ardaydii ay ka soo wada qayb galaan. alxamdulillaah maantana wuu noo bilowday, ilaah baana ku mahadsan. aadan u mahadsantiin insha Allah duleeraad waxaan rajaynaynaa inaan qayb weyn ka qaadano horumarinta waxbarashada ee degmada Gurceel. wuxuu socon doonaa adwaalad insha Allah taala maanta oo bisha 12 ilaa iyo 30 bisha insha Allah duleeraado waxaan ugu talagalnay ardayda 9kaas cisho inaan ku siino revision-ka laga soo bilaabo form 1 ilaa form 4 inaan revision-ka ku siino insha Allah duleeraado. sidoo kale qaar ka mid ah ardayda ka qayb gashay furitaanka muraajacadan una diyaarsan inta ay muraajacadan socoto inay ka faa'iideystaan ayaa jaamacadda kaga mahadceliyay garab istaagooda. magacaygu waa Sagal Yoole Xaguhaad oo ka socota iskuulka Amaamuun Al-Asri kana mid ah ardayda sanadkan baxayso. run ahaantii aad ugu faraxsanahay muraajacadan ay noo sameynayso jaamacadda Golden. run ahaantii wanaag inta ka badan oo qof ama jaamacad noo sameey karto ma jiro, wanaag badan bay noo sameeyeen. run ahaantii aadan u soo xusi doonaa hadaan ardayda form 4 ka sanadkan baxayso jaamacadda Golden insha Allah. magacaygu waa Xanaa Yuusuf oo ka socota iskuulka Ablaal. mahadnaq Ilaahay u sugnaatay marka koowaad. marka labaad jaamacadda Golden waxaan u mahadcelinayaa sida sharafta leh iyo qaamuuska iyo sida imtixaan ay noo garab istaagayaan in revision-ka nasiinayaan oo ku mahadsantiin aniga. magacaygu waa Cabdirasaaq Daar Salaad oo ka socda iskuulka Cumar bin Cabdicasiis Saanti Waabiri. waxaan aad iyo aad ma horta markooda Allah waxay mahad u sugnaatay Allah subhanahu wa ta'ala. marka labaadna waxaan u mahadcelinaynaa maamulka iyo jaamacadda Golden oo noo sameeyay haddaan nahay ardayda form 4 ee degmada ka baxay sanadkan maadaama dawladdu ku soo dartay imtixaanka fasalka sare ee fasalka 12aad maadada tiknoolajiga oo 12 maada laga dhigay. saas awgeed jaamacaddu waxay noo gor istaagtay inay training iyo noo sameeydo aan revision afarta fasal ee dugsiga sare. aad iyo aad mahadsanyihiin leeyahay injineerada iyo macallimiinta iyo waliba guud ahaan jaamacadda Golden isku duuban. waxaan u mahadcelinaynaa anoo ku hadlay afka ardayda deegaanka iyo waliba degmada Gurceel. waxaan leeyahay aad iyo aad mahadsantahay jaamacadda Golden.